Safiirka Maraykanka ee Soomaaliya Milyan Andre iyo ku-xigeenka safiirka safaaradda Maraykanka ee Kenya ayaa maanta shir jiraayad oo wada jira waxay ku qabteen dhismaha safaaradda Maraykanka ee magaalada Nairobi. Safiir Larry ayaa ka hadlay dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab ee ka socda gudaha Soomaaliya. Wuxuuna sheegay in dowladda Maraykanka ay ka go'antaa sidii loo cirib tiri lahaa kooxda Al-Shabaab ee dalka ka dagaalamaysay muddo ka badan 15 sano. Ambassador Larry ayaa intii warbaahinta la hadlayay wuxuu shaaciyay liiska rag ka mid ah hoggaanka ururka kuwa ay ka mid yihiin hogaamiyaha Al-Shabaab Axmed Diiriye, Maad Karate iyo nin magaciisa lagu sheegay Jihaad Mustafa. waxaana madaxooda la saaray lacag dhan $10 milyan oo dollarka Maraykanka ah. sidoo kale dowladda Maraykanka ayaa shaacisay inay curiyaamin doonto shabakadaha dhaqaalaha u ururiya kooxda, waxaana la saaray dhaqaale lagu abaalmarin doono qofkii soo sheega tabaha shabaabku lacagaha uga qaataan ganacsatada Soomaaliyeed. Larry Andre ayaa bogaadiyay gulufka ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka ay ku qaadeen Al-Shabaab kaasi oo durba kooxda looga saaray dhul baaxad leh. Today we announced the doubling of the reward offers for information leading to the capture of those leading Al-Shabaab. These leaders of the murder organization that you see right here. These include Ahmed Diiriye, Maad Karate, and Jihaad Mustafa, whose photos you see on the poster to my right. We also announced a new program aimed at disrupting Al-Shabaab's financial networks. Let me stress that this is in support of the announced strategy of the Somali government. So this program fortifies a key pillar of Somalia's government's strategy for defeating Al-Shabaab. Al-Shabaab has extorted funds from the people of Somalia for a very long time using violence and intimidation to finance mass murder. That's what we're talking about. I joined DCM Dillard in urging anyone with information about Al-Shabaab's senior leaders or the financial networks to come forward. And it's important that the information be as timely as possible so that it be actionable. The good news is that the government of Somalia, under President Hassan Sheikh Mohamud, is working with state governments in Somalia and local communities, the community defense forces, and they are together making real progress, historic progress, in the fight against Al-Shabaab. We support in practical ways the efforts of the Somali government. Together, Kenyans, Somalis, other East Africans, Americans, we can defeat Al-Shabaab and enhance security across the region. ugu dambeyntii dowladda Maraykanka ayaa dhaqaalaha ugu badan ku bixisa la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, waxayna aaminsan yihiin dadka falanqeeya arrimaha kooxdani in lacagta maanta lagu dhawaaqay ay culayska ku sii badin doonto hoggaanka kooxda ee la baadigoobayo.